يا برو حاجة شيء كحيجة أري صورة أديك يا صاحبك أوكا سماهون وبس ده هاي ها maxay u yeedheen waxay dadku ka dooni jireen dee waxay dooni jireen bacaawa habeenkan caawa qosolba way dhaaftay farxadba way dhaaftay anigu gebigeyga mafsuud anigu halkaasaan see fadhi waan ku arkay intii yareed hore soo kacday baaba gebigeyga horta aniga igu filaatay dee markaas sanadkuna waa dee sanad ilaahay sidaas abaad ku garaysa sanadkuna inuu wanaagsan yahayba muddaad u soo joogtay muddaad u soo joogtay imise sannadood baad soo taagnay waxaan soo taagnaa sanadaha dee halkaa gelinaysa halkaa dee meeshaad leedahay halkaas me hoos cidna u sheeg waayahay ma anigu hoos waxaa soo taagnaa awlkaad maraykan joogtay guur maaha sanad 17 baa soo baa anigu waxaan soo taagnaa sanado badan iyo ka hor amboo soo taagnaaye maadna habeenkii calanka la saarayay si fiican ايش قياسك ودي naga celinayay ruwaayada ilaahay waayahay dee anagu sanadkan maanta waxaan ugu soo talagalnay waxa weeye barnaamijka aan ugu soo talagalnay waayo sidiisa uu barnaamij isaga yahay sanadkiisa mar horena iminkana waan oranayaa waxaan leeyahay ilaahay hay naga yeelo kuwii ku gaadha barwaaqo iyo bashbash sanadkiisa waanu leenahay sanad walibahoodiyo hawliyo dhibaatiyo wuxuu hadi maleeyay sanad waliba hoodiyo waar ka warrama midaan cod xumahay xas horta anigu horta ninkaas waa saaxiibkay hase ahaatee dee dadku heesaa way ku kala anigu dee waxaan ahay gebigeyga codkayga marka la maqlo aniga markaan habeenkii xaafadayda joogo dadku waxay yidhaahdaan wallaahi xaafaddu sacabka ii tumaan markaan ku waa aniga dee kaas تعيش بالله يقدر هذا أروح البيو وعليه waxaanu leenahay sanadkiisa ilaahay inoo gadhigo baro maxaad nooran lahayd ciisow horta waa sanad wanaagsan ilaahay wixii istoonaya ha isu barakeeyo labada isu ma garanaysa ee xalaal isku doonaya qofka wax ka waxaysan yihiin oo ilaahay arrimahooda ha hagaajiyo waxaanu leenahay kulli caam oo anta bixeer ilaahay sanadkiisa hay amrada ma iska bixiya wanaagsan waayahay marka waxaanu leenahay qof anagu waxaan markay hore iska nahay wacyi gelin bulshada ah qaar kale waanu soo wadnaa qaar hore waanu soo dhigay dadku waa iska wada arag iminkana waxaanu dad kale leenahay war horta dee waxaaba la yidhi telefishinka home cable tv sanadka wuxuu gaarayaa 1 bisha koobaad maraykan baa laga sii daynayay kii shishe maraykan afrika ina baratay iyo yurubta iyo halkane haye horta hareeraha dunida Soomaalida oo habqabayso isku weydayeen bigsi oo qaarba meel ku hadheeya mawaadin aqoon leh hilisaa maskaxdiisiyo hobigiisa ka keenayo telefishin hagaagsan oo satellite-ka la haysto iyo home cable baa la isaaray oo ay hawada soo geliyeen ummadii kala haydhay habeenku ku dhex qaaday markii ay saleen hambaliyay soo gudbiyeen habeenkan caawa la joogana hareeraha dunidoo dhan sanad guuradiisii 11 baa heega loogu jiraayo hagaag loo xusayaa hurdana caawa ma joogtee waa inoo hees iyo dhaanto iyo history la iska dhageysto dhamaantii halkaas ku saabsan markaad sheegtay hoonkeybi halkaa maraykanka inuu gaadhay anigu waaban ka heesa maxaad ka tiri waxaan idhi higada quraanka iyo sugantiyo heesaheeda hidiya dhaqankaagii hooyo hareeraha dunida maanta hadeerka warkii ka jira honkay balbaa ku haye hormuudka honkay balsaar hawada la soco ka hubi warkaadu heelanayd ya salaam wardani kan waa heesta waa naga horeeya waxaanu leenahay aniga ciise barnaamijyada haddii ilaahay ka dhigo sanadka cusub waanu labalaabi doonaa barnaamijyadii aan nooga barateen aan laga soo dayn jiray home cable
waxaanu jecelahay sanadka kan cusub inaanu laban laabno hortiinana keenno barnaamijyo ah u xiisa qabtaan oo ah dee barnaamijyadii bulshada aanu kala hadli jiray wacyigelinta iyo wixii ku soo kordha iminkadana waxa fooda inagu soo haya barnaamijyo cusub oo aanu ugu talagalay sanadka cusub inaanu ka soo dayno telefishinka ho cable waynu ka wada socon doonaa insha Allah barnaamijyada cusub ee sanadka cusub aanu ugu talagalay waxaanu leenahay ilaahay haynaga dhigo kuwii bashbashiyo barwaaqo ku gaara waxaan ka codsan lahaa dawada u yiri barnaamijyada soo socday war way soo socdaan markii kuugu qosol badnay intaad noolay ama majaajil ha noqoto ama qof kalidiya maxay ahayd ma xusuusataa horta aniga sheekadii ugu qosolka badnayd way dhaweyd bay ahayd haye Axmed Xasan Cawka soo daayay haye wuxuu ka soo daayay TV haye waxa sheekada la yiraahdaa kaafiye kala dheeri sheekada la yaabka ku arkay dadku isu keenay dadkaad isu keentay horta bar kun jeer baan isii barnaamijkaas oo kale ayaa ku soo celiya waayo waxaad keentay qof yar oo cid la rafanay iyo qof yar oo meel saaran iyo waxaan oo qof meeshaan iska keentay horta habeenkii aniga igu qosolka badnay habeenkaas ee barnaamijka yar bay ahayd aad ma santahay وهاجاك دعوة ديال ودركسين صوران يساحبكي يو نمعهون حين